بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، حلقتني وحلقتي صدحية طبلات، وبرنامج كيني لما قاعد بحي تقونك بشهر رمضان إلى عرفية آد بنو دريم يا أذيك يعرف يا في رمضان. محد رجيني سان عاوة إن ذي سوق بينه عندنا قيم ستان، وموضوع آدي أذو بهاي الإنفاق في رمضان. شيخ يجي صاحب كي قلنا عبد الحقيقة فرد وحان ربائنا ويديو إمان كاميشا كقرن توامحي الإنفاق في رمضان. رمضان سولما أورانين وميدانكي خيرك. سولما أورانين وماشي لجو برتمي لونا كلا ديريني أجرك إيو عبادة إلهي سبحانه وتعالى. إنفاق مركا وسمرة إيا أستانتا لغو قرطو ومدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهو بحنت الله أكبر. إن وحلا بحيو محاوح بحنته في رمضان لولي. في رمضان وحاول يدي ومناسبات أو إيضا أو وحي أو خيري هاي أيها هدنا خيرك وحسي زائدة لشرف الوقت والمكان. لا إله إلا الله. لشرف الوقت والمكان. ها نعم. مركا رمضان وبشي ديق سني مدى بشي وحبحنته وهي بشي رمضان. سيدا درادت برسول الهدى صلى الله عليه وسلم رمضان كمركو صوغلو خيرك وحو اوغا ديرين جيري الريح المرسلة دبيشا يعني سعوته سيدا اي ودغدغتو سي كدران ايو النبي صلى الله عليه وسلم خيرك اوغو دغدغي جيري وان اشاره في عن او تلماميسا اغنيدو اما رج الهي وحسيي صحيح اني اوغادان قيمها وحبحنته اي leedahay iyo fuqarada may labadaba labadaba yani waxa weeye nin walba deetog walba taagtibu rogmada nin walba wuxuu hayo ayuun buu bixin laakiin inay qalbigaada ku weyn tahay wax bixinta aad iyo aad ba arintaasi ay daruuri u tahay wax bixintu calaamad iimaanka daliil u aamiyata sana daay aan sheegnay ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam suuratul baqara ilaahay markuu sheegay saddexda aayadood u horeysa tilmaamaha dadka muuminiinta lagu garto Allah nagu daree ayuu sheegay suurada labaad uguna dheer quraanka ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri alladina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa kuwa ghaybka rumeeya rabbi oo in arkin bay rumaysan yihiin janna iyo naar in arkin bay rumaysan yihiin ghaybkay rumaysan yihiin waxay salaada ayay oogayaan toosinayaan oo ay arkaanteedii ay baranayaan wa mimma razaqnahum yunfiqun wixii aan siinay ee aan maarta xoolahoodana waxbay ka bixiyaan oo waxbayda mimma tilmaamaysa qaar bay ka bixiyaan oo tabciidiyo wixii oo dhan lama wada bixin karaa de qaar baa ahkaam iyo waajibaad ugu gudanayaan sida daradeed ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa kariimka in badan ku sheegay wax bixinta iyo sadaqada iyo qiimaha ay leedahay lan tanaalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun horta ayadaas sabab nuzuul ma ilahay nabigu sallallahu alayhi wa sallam markay soo nabigu soo degtay ayada saxaabada u sheegay lan tanaalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ayaa ninka la yiraahdo Talha wuxuu sameeyay beer la oran jiray Bayruuxa oo masaajidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam qibladiisa ku taalo meel istiraatiiji aad u fiican ku taalo ayuu aayadan u dhadhamiyay asxaabaduna waxay oga doonaayeen ummadda nabi maxamed intooda kale aad bay macaanida haday aayad quraan noqon lahayd iyo hadallada uu nabigu ku hadlay sallallahu alayhi wa sallam way dhuuxi jireen wayna dhaqan gali jireen ciyaar kuma dhaafi jireen markaasuu ninka la yiraahdo Talha wuxuu yiri يا رسول الله بيرتن بيروحا لا يراهدو وا xoolahayga iyo hantidayda waxaan ugu jeclahay ayada tilmaamaysa ayada waxay leedahay wanaaga iyo samaha gaari meysaan ila aad ka bixisaan waxa jeceshiin ila aad ka bixisaan marka beertan ugu jeclahay bayruuxa beertan iyada marka waa sadaqatun wa fi sabilillah ee fadhaha haythu araka Allah ilaahi meeshi uu ku tuso oo dhigi karto dhig buu ku yiri markaasuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam aad ugu duceeyay aadna ugu riyaaqay marka aayadahaas iyo aayada kale aad u farabaday ya ayuha alladina aamanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafirun hum adh-dhalimun inta ay goor tahay in wixii ilaahay uu ku siiyay aad la baxdo sababtoo
قفك مركو يتحولي دون ربي إله ودب يعلي فأصدق وأكون من الصالح ومشيء كلية مركا وإلهي ودب يعلي dib ii celin wuu celin maaye markaasuu ilaahay noos sheegay oo hadii lagu celin maxaad sameyn asadaqa wa akum min as-salihin marka sadaqada in wax lala baxayo waa xilliga fursada aad haysato waa xilliga aad wax haysato waa xilliga aad nooshahay waa xilliga aad inaad wax la baxdo weeye yaqulu ibn adam mali xoolahayga budhi wa hal laka min malika illa ma أكلت فأمضيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت إن حوله هيجي وهنتي يدي وجريه هيجي شركة هيجي واحد ولا ده هاي وحي عاد حرتي وحي عاد عنتي وعاد صوشة جيسي يا وحي عاد حرتي ودوق نقضي ودساق وكر لما أسالة جيسي إلا وده ما رأي وحي وهرية يا وحي عاد هرمر صتي وبنك آخر كوتشي لما بعد لا ده مرك حولها ولو بشق التمر شيخ الفاضل نبيكم مالن بو صحابتي صلى الله عليه وسلم أدنى خيرك ugu tirtirsin jiray saxaabadiisu wuxuu yiri waa kuma midkiina xoolaha ninka dhaxli doono ka jecel xoolihiisa markaas waxay dhaheen kulligana xoolaha adigu aad leedahay baad ka jeceshahay xoolaha ninka ku dhaxlaya markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam xoolahaadu waa ma qadama wixii uu bixiyay oo aakhir ku jira xoolaha ninka ku dhaxli doonana waa inta aad ka tagtay wuxuu ku sameyn doonana عملي وعجيبه marka maadaama bishii ramadaan ku jirno sheekh al-faadil waxa weeye qofka in dadka sooman la afuriyo waan rabaa inaan ku weydiiyo xoolahan hal bixiyo si khaas ah qofka sooman ajir intee dhan buu helayaa qofka qof afuriyo wax la heli kara ma aha wallahi al-azim qofka in uu intu ilaahay darti u soomo xoolihi ilaahay uu siiyay in uu nin sooman uu afuriyo wax la heli kara ma ninka ajirkiisa waxa laga nusqaamin maayo nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi man aftara saa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri saa'imi shay'a ninkii qof sooman afuriya ajarka ninkaasoo yeelan waa tijaara raabixa marka isna waxba laga nusqaamin maayo ilaahi subhanahu wa ta'ala waa deeqsi halka risaalo yar oo dadka bulshada muslimiinta ku socota oo ku aadan maanta ummadda muslimiinta ee baahan meel walba joogaan ummadeena Soomaaliyeed gaajada iyo baahida iyo munaasabadan iyo ramadaanka iyo dadka ilaahay u barwaaqeeyay maxaad ka dhiiray waxaan ugu naftayda iyo iyaga ugu baaqi lahaa in ay jaaniska ka faa'iideystaan intay nool yihiin gobolada Soomaaliyeed qaarkan gobolka Hiiraan oo kala waxaan maqlayay biyihii baa fatahay oo dadkii gobolkan colaad baa ka jirto dagaal ka jira dadkii masaakiinta ah ayda iyo howdkay galeen maanta waxa weeye in aad dadkii inta la xiriira $100 $200 wixii aad heli karto inta lagu baxsado oo la yiraahdo dadka soo Soomaaliya lagu afuriyo waa chance aad iyo aad dahabi u ah ilaahay aniga hana garansiyo Allahumma aamin su'aal sheekhi hadii uu qof agtaada ku afuro wax ducaa oo nabi ka sugnaatay ma jirtaa sallallahu alayhi wasallam oo lagu ducayn karo الله أكبر وأرن آدي سؤال أدو قيمة بدنوي النبي صلى الله عليه وسلم وحو أفوريي سعد بن معاذ صحابي أيو أفوريي النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله مركز النبي وحو يري أفطر عندكم الصائمون يا سلام وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عندك دتك كلها لكن وحاول شيخ الباني وادي وحيري تاس كما جرتو لكن افطر عندكم الصائمون دتك الصومن اكتينها كو افرين واكل طعامكم الابرار عنتديننا دتك باريالك هعنين الهي عابدين وصلت عليكم الملائكه ملائكتنا نكت فربدان او مصاريده laga sheego ya waxay dhaaneen masaari ah ayaa maxaa la yiraahdaa reer siro kala soo martay shaahi aad xabaabali markaas marka ducada aftara indakum as-saa'imuna wa akala ta'amka abra wa salla alaykum malaa'ika yumidili illa jibril wa lagu qasab hawra tali amu fin shaab hay tayat shaab aad sheekh xamdali maxaan dhahaade run ahaantii waa kalimaad aad u qiimo badan aad u wanaagsan Allah waxaan ka weydiinaa subhanahu wa ta'ala إنه ميزان كحسنات كشيخ أبو دري الحبة أنت كل من حلقة أنتن كأهين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.